waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda dhanka academics-ka Marwo Fawsiya Cabdullaahi Cilmi oo isugu jirta martida tan aan caawa uga martidanahay barnaamijkan ACCA-da ama skills-ka oo dhan iyo martidan kale oo ka soo qayb gashay xafladda sidoo kale maamulka jaamacadda aan qaybihiisa kala qaadayn dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka koowaad waxaa ilaahay mahad iska leh goobatan isugu keenay inaga oo caawa rabna in aynu maqraanti ka ahaano jaamacadda dadaal ka mid ah oo ah santarkii examka ACCA-da oo jaamacaddu ay in muddo ah dadaalkeeda waday sida aan la socono jaamacadda Boosaaso waxa ay magaalada ka furan tahay Garowe waa muddo 10 sano ah 10kaas sano waxa ay xoog saaraysay qaybta academic-ka ama waxbarashadu waxay isugu jirtaa academic iyo professional 10kaas sano insha Allah waxa aan ku dadaalayna inaan bal qaybta aan xoog saarno oo wixii awood iyo tabar ah aan isugu geyno hadda waxa noo muuqatay in ay soo baxayso qaybta professionalska ama skills-ka in aan iyadana aan u wareegno horay kulliyadaha jaamacadda uga baxay waxa ay ku base garaysnaayeen waa skills oo qof kasta oo ka baxay waxa uu awood u lahaa waxa uu bartay in uu ku shaqeeyo oo waliba uu ku noqdo qof shaqo abuur isagu ku sameeya insha Allah waxaan rajaynaynaa santarkaana inuu ka miran dhalin doono qaybtii professionalka santarku ACCA kaliya ma aha insha Allah waxaan rajaynaynaa in uu gudoomiye xalwad uu inoo faahfaahin doono hadii Ilaahay idmo laakiin caawa waxa aynu u fadhinaa waa qaybta ACCA-da laakiin waxa aan anigu hadda meeshaan u imi waxa weeyaan daahfurkeena aynu idin furo xafladda waan idinku soo dhaweynaynaa waan rajaynaynaa cid kasta oo horay u raadinaysa in ay santarkan u faa'iido u noqdo ayna u helaan fursado maaragtay ay hamigooda sida aan oo kale ay kaga faa'iideystaan aad iyo aad baa mahadsantihiin xafladeenuna waa inoo furantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi madaxda jaamacadda Boosaaso waxaan isla markiisa jaleeci doonaa ustaad Maxamed Cumar ahna dhiinka kuliyadda maamulka xisaabaadka casriga ah ganacsiga iyo xisaabaadka casriga ah runtii barnaamijkan qabsoomidiisana door weyn ku lahaa waxaan rajaynayaa soo dhaweynaa ustaad Maxamed Cumar soo kalmadiisa ugu aadan maantay ama caawa aan dhahay waxa farxad noo ah inaan dhammaanteen si gudoomiye Fawsiya sheegtay inaan marxaati ka nahay daahfurka mid ka mid ah yoolasha ama tiirarka ama higsiga jaamacadda Boosaaso Garowe oo ahaa in waxbarashadu ay yeelato waxa la dhaho takhasusaad gaar ah ama xirfad ama skills ama professional waayihii dambe 10 sano ugu dambeeyay waxyaalaha iska badnaa waxa ka mid ahaa qof aqoon-yahan wax walba wada yaqaan dukaan ganacsi oo magaciisa la wax walba haye mid kale oo la dhaho darsuroon specification-kii oo dhan baa wadanka ka lumay su'aalahan oo kale waxa laga yaabi karaa haddii maanta magaalada Garowe aad tagtid way adkaanaysaa ama Puntland oo dhan not only Somalia ifan xataa waa arkaanaysaa in xarun ganacsi oo specific items kaliya loogu hagaago ay leedahay haddii magaalada Garowe maanta ku soo wareegto ka heli maysid meel gaar ah ama company gaar ah oo kabaha kaliya gada mid gada ma taqaanaa items kale nin walba wuxuu xiisu waxa weeye waa wax walba hayahaas marka 10 sano kadib waxaan rabnaa insha Allah tacaala jaamacadda Boosaaso Garowe iyo kuliyadda ganacsiga iyo maamulkaba waxyaalaha aan ku fikrano waxa ka mid ahaa in wax walba yaqaanka iyo wax walba hayaha ay meesha ka baxdo kadibna xirfad markaas ay hawshu aado kuliyadda aan odayga ka ahay kuliyadda ganacsiga iyo maamulka ilaa 5 department ka kooban tahay departmentiga waaxda xisaabaadka waxay ka mid tahay mid ka mid ah waxyaha tiirarka u ah kuliyadda barnaamijkan cidda beneficiary-ga ama la faa'iideysay cidda ugu weyn oo ka faa'iideysanaysa marka hore waxaan halka ka carab inay noqoto ardada kuliyadda iyo ciddii kale markaas waxa weeye ahlumaka adarka bishacaab ciddii kale markaas gadaal uga soo biiris haday noqoto dadka magaalada iyo waxa weeye dad cid kasta oo xiiseynaysa xirfadaas takhasus xisaabaadka inay barato ardadayadu accounting-ku department-gaas runtii wuxuu ku jiraa ardayda sida gaarka ah barnaamijka markooda hore aan u jihaynay oo arday walba oo xirfadda xisaabaadka jaamacadda Boosaaso ka barta maanta wuxuu yaqaanaa markii 3 bachelor-ka degree uu dhameeyo meeshuu aadi lahaa يعني already way u tilmaaman tahay at the same time waxaan u jeexnaa wadadaas inuu qof xirfadla ah oo takhaasuskiisu yahay meel la yaqaan ku abtirsado markaas ay noqoto waxaan rajaynayaa insha Allah taala barnaamijkan inuu miro dhalkiisuna insha Allah taala in la arki doono barnaamijka markii la asaasayay markii laga yimaado fishinka innovation-ka jaamacadda hadana waxay ka timid
cidda markaasi lecturerka ama barayaasha department accounting jaamacadda oo aan uga mahadcelinayo burhaan bashiir maxamed warsame iyo burhaan ismaaciil bahjo ustaad maxamed qube iyo macallimiinta kale accountingka run ahaantii hadda aan goobta joogin laakiinse barnaamijkan la socda marka waxaan rajeynayaa in barnaamijka already medalkiis waa la arkay oo ardada almost jaamacadda bachelorka ka dhameystay sanadka hore qalin jabiyay number fiican oo kamid ah ba hadda almost waxa weeye takhasuskaas xirfadda xisaabaadka barta ayagoo bugaagtooda diyaarsada akhrista kadibna ay macallimiintu department-ga runtii aad uga caawiyaan oo ma aragtay sheeg haday waqti kamid ay siiyaan habeenkii iyo xilliyada dambe at the same time hadana ardada October noo qalijimin doonto oo department-ga accounting ka qalijimin doonto aan filayo kontumeeyo arday inay ku dhow yihiin qayb badan oo kamid ah almost hadda way yaqaanaan meeshii aadi lahaayeen marka wax badan oo mataqaana inay ku wareeraan markaad bachelorka dhameysay xagee aadi doontaa marka laba ardada isugu darnay inuu yaqaano markuu bachelorka xirfadiisa accounting dhameeyay meeshuu aadi lahaa at the same time hadana inuu suuqa cariiri tira badan ku soo siyaadino xarunta jaamacadda entrepreneurship centerka xarunta hal abuurka jaamacadda laftirkooda waxay soo saartay fikrado tira badan oo ganacsi oo dhamaantood badankoodu ay curiyeen ardada kuliyadda ganacsiga iyo maamulka ka baxay oo runtii markii bari ardaygu uu dhameeyo asagoo xirfadiisa dhiganaya hadana hal abuurkiisa ganacsi leh oo sababta meeshuu noqon lahaa asagoo shaqo doone ardadayda waxaan ku faraxsanahay inay yihiin shaqo abuurayaal laftirkoodu cid gaar ah markaas ayagu shaqada bixiya shaqana loo soo doonto marka yaanan waxba ka caliyeen dadka ehelka waa barnaamijkan insha Allah taala waxaan rajeynayaa in barnaamijka uu noqon doono mid miro dhala dhamaantiin oo meesha salaam alaykum waxa uu cadeeyay runtii waxaan ku sii socon doonaa barnaamijkeena waxaan haddana galaynaa qaybta sida qodob uu yahay boorka gadaasheeda ku taagan waa in si daahfuran loo furo si rasmi ah loo furo xarunta imtixaanaadka xirfadaysan marka halwadeennada xaruntaas baan u yeeri doonaa jaamacadda waxaa u matali doona ustaad maxamed cabdi iyo cabdimaalik runtii ustaadkan soo dhaweynaya si uu tafaasiil dheeraada iyo bal surfaceska centerku hayo iyo haddii centero kale jiran waxyaala ay kaga duwanaan karaan ma la bilaabo hore ma loo dad waxa loo yaqaan outcome ka soo baxeen ma hadda la bilaabi doonaa arrintan centerka runtii waxaanu bilownay 2020kii laakiin challenge baa wuxuu naga qabsaday COVID-19kii markuu bilowday baanu annaguna communication ka bilownay muddo baanu isla wareegaynay sababtoo ah iyaga qorshahooda waxaa ugu jiray waxyaalaha ugu jiray waxa ka mid ahaa meesha ay siinayaan license siinayaan in ay tagaan oo ay soo verify gareeyaan oo soo arkaan muddana waxaan iskula daba wareegaynay qaabkii ay bal wax nagu siin lahayn wax nagu ogolaan lahaayeen iyo annagu runtii cadaadinayna cadaadis badan saarnay maadaama baahi badan ay jirtay oo arday waddanka ku geli jiray kadibna xarumihii ay ku geli jireen ay iska koobnaadeen ayna noqotay in ardaday meelaha ugu sokeeya ay u aadaan Muqdisho ama Nairobi ama Addis meelaha inay u aadaan annagoo marka baahidaas dhammaan Puntland oo dhan ka jawaabayna ardadeedu ay qabaan baan waxaan ku dhiirinay inaanu annagu marka xiriir aanu la sameeyno sidii centerka loogu heli lahaa dhammaan arday ama boosaaso ha joogeen ama gaalkacyo ha joogeen xataa arday badan oo nagala soo xiriiraya Somaliland runtii ma leh wax center aan loo ku sheegay oo waxay danaynayeen inay center helaan kadib waxaan oo fududaatay in ay arkeen challengeska COVID-19kii waxa markuu xoogaa yara jiitamay kadibna ay qaab virtual ama ay qaab online ah ay ku soo galeen oo video intaan u shidnay ee campus-ka oo dhan xataa washroomiska iyo meel kasta aanu halkaa ka daawasiinay kadib bay waxay noo soo direen laysinkii noo ogolaadeen dabcan laysinka aanu haysano waa 4 maado hore weeye markaas inta kalena dabcan processkeedii baa socda oo dabcan way ku xigaysaa haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaanu qorsheynaynaa inaan iyadana qolyo Pearson la yiraahdo exaamada online-ka ah oo SCCA-du ay ka mid tahay imtixaano aad u tiro badan oo professional ah lagu galo inaan iyadana mar dhow aanu insha Allah aanu la heshiino oo wada hadalku noo socda waxa taa noo sii fududeeyay iyada laftigeedu jaamacaddu waxay leedahay kuliyadda ICT-ga laba laab oo waaweyn bay leedahay markii hore waxaan isku daynay inaan labada laab iyo ACS centerka laftigeeda inaan u adeegsano iyada laftigeeda noo suuragali weyday oo ardadii IT-ga waa arday naga xirfad badan
qolyahana waxay rabaan in system iyo programmo lagu shubo oo aan cidna aysan ka taataaban markaas waxay noqotay inaanu agab gaar ah iyo facility gaar ah iyo qol gaar ah aan u diyaarino dabcan dhismahan kuma yaalo dhismo kale ku yaala dhismaha health science ka xarunta ku taala oo gabigeeda waxay u xiran tahay in imtixaanada professionalka ah lagu galo loona diyaariyay dhammaan wixii requirements ah oo professional ah oo la ka rabay ama standards ah oo dhan oo loo dejiyay inaanu markaas aan waafajinay oo sidii looga rabay aan uga dhignay hadda laftigeeda markaan leenahay aan launch gareynayno ma aha inaan wali wax imtixaan lagu gelin waa lagu galay arday baa imtixaan ku gashay qaab si successful ah bay ugu galeen imtixaankoodii ugu dhamaystirteen oo hadda kuwa ardayna la fadhida lafteedu ay ka mid yihiin waxayna ku tusinaysaa in aanu si dhab ah aan u fariisinay oo dhammaan wixii kasta oo ka imaan kara ama wax kastana aan ugu talagalnay dabcan qolyo kale u daynaya iga badiya inay arrinta online-ka imtixaanka markii lagu galayo iyo markii lagu galayo centerka waxyaalo ay ku kala duwan yihiin iyo faa'iidooyinkooda laakiin anagu kan waxaan ku faanaynaa inaan dhammaan team hayno u tababaran wax kasta oo cilad bixina ama wixii ku timaada anigu hadda waxaan centerka u matalayaa exam coordinator ahaan sida kale titlekaygu waa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda dhanka maamulka iyo maaliyadda laakiin si ku meel gaar ah baan centerkan hadda waxaan ugu ahay exam coordinator laakiin waxaa jira teams kale oo ila shaqeeya oo administrator oo cabdiqani uu ka mid yahay iyo cabdirashiid waxaa isna halkan ila fadhiya cabdimalik oo ah dhanka ICT support invigilators baa iyaguna jira marka dhammaan teamskaasu waa teamska u helan markaas inay ka shaqeeyaan ama ardada imtixaanaadka ama wixii la halmaalaba ay la tacaalaan waa ilaahay mahadii inta arday aan ku testigareen oo hadda ilaa hadda gashay si successful ah bay waxoodii ku dhamaysteen oo u galeen waxaan wax yar oo kooban rabaa inaan wax yar dul maro barnaamijkan fiilyo badan bay sheegeen khiyaartu in imtixaamadooda lagu kala doono insha Allah jaamacadda laakiin waxaan ku koobnaan doonaa ACCA-da oo xoogaa xogta aan ka hayo wax yar kala wadaagi doono xogta waa la kala qaybiyay hadda akhridaan qorshaha barnaamijka akhyaarta kale qayb qofba meel buu taaban doonaa ACCA caadiyan waa association u abuuran in ay bixiyaan certification kaas oo ay ku sheegayaan in qofka qaatay uu yahay qof leh khibrad xirfad ku filan oo ku saabsan fiildiga xisaabaadka marka la dhaho kuma koobna kaliya qofku inuu accountant laakiin accountant waa isagoo ah buu magac ahaan ka mid balaaran yahay oo uu sal balaaran yahay accountant markaan leenahay fiildiyo ama waxyaabo badan oo hoos imanaya ayaa jira waxa hoos imanaya accountingkii caadiga ah taqaaneen waxa hoos imanaya managementkii oo dhinaca waxa hoos imanaya auditkii iyo assuranceski waxa hoos imanaya dhinaca kale ah taxationkii waxa dhinaca kale ah financial managementkii waxa dhinaca kale ah mataqaana management accountingkii marka all these areas ayaa lagu ka fargaraynaya association kan xilliyadii ugu horeysay qarni iyo dhowr iyo 10 sano ayuu jiraa waxaan u maleynayaa haddeer 117 sano ayay leeyihiin ayuu asaasan yahay intaas wuxuu soo bixinayay certification buu soo bixinayay way isrogrogaysay marba meel bay joogtay laakiin hadda wuxuu ku jiraa associationada haysta memberada ugu badan caalamka 230 iyo dhowr kun oo member markaan leenahay waa qof ku guuleystay dhaafay imtixaankii waa qof dhaafay khibradii waa qof dhaafay wixii la oran jiray professional experience requirementski saddexda qofka community oo dhaafay ayaa member 500 iyo dhowr kun oo kalena waxay u yihiin arday bay u yihiin halka markaad isu geyso dad ku dhow 1 milyan ayaa si uun ugu abtirsanaya oo dhinacan ka soo galaya association-ka dadka balaarka la eg waxay kala joogaan caalamka daafihiisa waxa ay qofka u fududeeyeen globally way kaga horeeyaan runtii associationo badan oo kale oo accounting body ah inay noqdeen international iyagu haddaad u fiirsato sida wax badan ka akhrido accounting bodies ka jira qaybna waa local qaybna waa international for example wadamada dariskeena Kenya waxay leedahay CBA iyada u gaara
oo ay ka soo baxaan dad certified professional accountants ah laakiin Kenya Soomaaliya waxa haddeer ay meel fiican u maraysaa inay hesho CPA gaara oo SICPA ah oo Soomaaliya mataqaanaa Institute of Certified Public Accountants oo aynu helno qof Soomaaliya u aqoonsan tahay inuu noqon karo xisaabiye xirfadaysan uu noqon karo ama xisaabiye xirfad leh erebixintu hadday khaldan tahay raali aada waxaan ka dhaxlay xiriiriyahan ka dhaxlay markaynu ka hadlayno ACCA si guud waa qof yiri waxaan diyaar u ahay inaan ku biiro association caalami ah oo aan helo certification la aqoonsan yahay oo la leeyahay hebel ama heblaayo waa xirfadle la isku halayn karo isku halayntiisuna ay gaarsiisan tahay in documentiga uu magaciisa ku saxiixo loo aqoonsan yahay documenti dhammaystiran for example financial statementiga isagu uu saxiixaa waa financial statementi haysta saxiix u qalma audit reportka uu saxiixaa waa audit report haysta saxiix u qalma macnaheedu waxa weeye markaas although iyadu aanay ACCA bixin laysankii aad auditka ugu saxiixi lahayd wadan hebel sababtoo iyadu hal wadan kuma koobna laakiin aqoon ahaan bay waxay ku gaarsiinaysaa inaad qaadan karto kaliya waxa qofku u baahan yahay marka wadanka gaarka ah associationkiisa xisaabaadka inuu ka sii qaato laysankii marka tusaale ahaan haddaad maanta ACCA member noqoto automatically waxa tahay SICPA member oo Soomaaliya level haddaad ACCA member tahay waxa u baahan tahay maado ama labo saa u noqoto Kenya mataqaanaa ECBAC ama maxaa la dhahaa ECBAC member saa u noqoto marka waxay gaarsiisan tahay heer aqoonteedii ama aqoonsanaanteedii ee noqotay caalami associationada accounting bodieska la yiraahdo ee xisaabaadka isku soo ururi waxa ay ku jiraan dalad la yiraahdo IFAC oo iyaduna federation ah oo mataqaana isku ururisa dhammaan associationska noocaasa waxay kamid tahay kuwa ugu horeeya oo wacansan ay kamid tahay marka ugu horeyn xog kooban horta waa intaas waxaan isleeyahay ardayda halka fadhida waxa ugu badan ay haddeer iyagu niyadooda ku jira su'aalo ay kamid yihiin hadalkii foosiyo war waxaan ma la baran karaa ma laga bixi karaa waxaan u dayn doonaa akhyaarta kale oo qaybtood iga sii khibrad fiican marka lagu qiimeeyo environmentiga Soomaaliya anu wadamada xoogaa dariskeena baan ku soo marmaray bahasha ku soo dhuundhuuntay laakiin akhyaar waxaan fadhida aan weligood iyagoon wadan ka bixin bilaabay oo dhameeyay marka qofkaas wuxuu akhyaartaas waxay iga fiicnaanaysaa in life examples in siiso marka iyagaan u daynaya xaggaas laakiin waxaan idin xaqiijinayaa haddii saddex waxyaabood kaliya laga helo arday ahaan saddex waxyaabood bas haddaa xaqiijiso inaad ACCA ka mira dhalin karto waxa ugu horeeya waa commitment oo inu ku adag hadeen Soomaalina commitment aad naftaada la gelaysid inaad tiraahdid waxaan timekayga u commit gareynayaa intaa in la eg every day maaha yaa every month maaha every week every day intaasoo saacadood ayaa nafteeda waxaan u commit gareynayaa inaan kursi iyo miis dul fadhiyo oo aan ku mashquulo book ama computer saan wax u akhriyo tiimka jaamacadaha waa iska warhaynaayo waxa weeye daqiiqada u dambeeya habeenka maadada la gelayo baabuuga la rogaa soo ma academiga markaynu qofka ugu fiican asbuucaas u akhriyaa that cannot work marka la yimaado halakan xaqiiqada marka lagu sheegayo commitmentigu waxaan is leeyahay waa meesha ka bilaabato kuna dhamaato commitment marka laga helo waxa labaad ee qofku levelka cilmi ee uu leeyahay ku xiran oo anfacaya oo accounting background-ka ahina waxaan is leeyahay waa essential haddaanu accounting background haysan waxa laga maarmaan noqonaya inuu ACCA da qualification ahaan aanu toos u bilaabine uu ka soo horeysiiyo foundationskii kale ee sida CAT-ka oo kale oo qofku intuu CAT-ka soo qaato marka goorta ACCA professional qualification-keeda caadiga uu toos u bilaabo si foundation-ka meel kale uga helo laakiin arday jaamacadeed markaad accounting background leh step-kii labaad oo ACCA aad kaga mid dhalin kar lahayd waad haysaa shayga saddexaad ee aan la sahlan karin oo laga yaabo inay istiraadaan odaygu armu xoogaa idin bajinaya oo luqadda Ingiriiska waxa laga yaabaa inay istiraadaan jaamiciin baa waa naqaanaa laakiin waxa key u ah oo su'aasha lagu weydiinayo iyo su'aasha aad kaga jawaabaysidba u noqonaya furihii waa Ingiriiska waxaan malanayaa waxa hadalkiisa ku darsan doona wasiir Cali waxaanu macallimiin ka nahay oo wasiirka aan assistant ugu ahay barnaamij sifa la yiraahdo oo wadanka isaguna ka socdo oo shaqaalaha dawladda lagu tababaro
barnaamijkaas alxamdulilah waxaan malayaa tiimkii hadda dhiganaya qaybayna kala joogtay daayaan arkayay tiimka haddeer ku jira certificate levelku way fiicnaayeen laakiin tiim diploma level ku jira oo meel fiican xoogaa yara gaaray waxa ugu badan ee caqabada ah ee curyaamiyey oo socodka adkeeyey waa ingiriiska oo dadkii ku adkaaday sababtoo ah maxaa kii u ahaa qofka waxaa loo keenayaa su-aal scenario ah oo iyada keliya 2 page 3 pages ah haddaanad marka sheekadaas si dhiibiya intaa u fahanto helin wixii aad kaga jawaabi lahayd oo iyana ingiriis kale ah dee way kugu adkaanaysaa waxaan isleeyahay qofku hadduu saddexdaa waxyaabood haysto oo financial of course diyaar yahay wuu ka bixi karaa SCA saa u dhigatid marka Boosaaso University maxay ku haysaa waxay ku haysaa centerka imtixaanka lahayd bas hadeer macnaha buuggii adaa laga rabaa inaad isdiiwaan geliso adaa laga rabaa inaad noqoto arday dadaali karo oo buuggiisa intuu akhristo isagu waqti geliyo soo diyaar garoobo imtixaankii yimaada oo dhaa waxaan diyaar u ahay inaan imtixaankii galo marka imtixaanka aad usoo diyaar garoobaysid already iyagu waa kuu buukin garanayaan waad gelaysaa laakiin intii hore stagekii hore adaa laga rabaa inaad ku soo dadaasho oo soo gaarto halkaas marka ACCA iyadu maxay ku ogoshay ama ku siinaysaa ACCA maalinta aad iska diiwaan gelisid waxay ku aqoonsanaysaa arday waxay ku siinaysaa student ID ku leedahay arday baa tahay halkaa nagala soco ID-gaagana waa kaas maalintaad imtixaan usoo diyaar garoodidna booking garayso imtixaan way ku sugaysaa ilaa intaa ka diyaar garoobaysid xagee ka keenaysaa waxa ku diyaar garoobi lahayd waa another field institutions baa jira SCA kula jira heshiis oo soo saara materialskii ardaygu u baahnaa ardayda hadda dhigata ama ardayda dhigatay way garanayaan BBB tuition waxa la open tuition Kaplan dhamaantood waa institutions ka madax banaan SCA waxay heshiis kula jiraan inay soo sameeyaan institutionska SCA da qofkii u baahan materialka wax ka akhriyi lahaa mid uu baa kulay isagana kala xiriiraysaa oo aad ka raadsanaysaa oo maxaa la dhahay aad ka isticmaalaysaa markaad materialkii la timaado misna waxa u baahan tahay tuition provider materialka haddii aanad dee qof xariif heer fiican ama xariif mataqaana xariifadadan waxa laga yaabaa inaan gabdhaha maagaye heer fiican jooga haddaanad ahayn waxaa u baahan tahay tuition provider anuu kale waan u baahnaa khiyaarta maxaa weeye maxamed qube iyo bahajooyo waa u baahnaayeenoo waa soo marnay laakiin raggaan u baahno iyagu xiniyahooda ku socday waa joogaan tuition providerkaasina weli weyna ka maqan yahay marka waxaynu hadda helnay qayb ka mid ah waxaa la oran karaa markaynu qaybino componentska qofka ka kooban yahay jirkiisa qayb muhiima waynu helnay laakiin weli qaybo kale oo fududayn lahaa SCA in ardaygu si mataqaana fiican u dhigto oo dee smooth ah weli waxba ina ka yaraanin dhiman waxaan ku rajaynayaa ama kullee jaamacadda Boosaaso ama institutionska kale waddanka ka jira in cid uun qaybtaana ay fududayso laakiin ma aha qayb ku curyaamin karta ma waxaa hadda horteeda fadhiya khiyaar hadda dhigta SCA waan malnayo buugii labaad inay marayaan oo iyagu iswada iyaga un baa soconaya macnaha uma curyaamin inay tuition provider sugaan uma curyaamin inay macallimiin bahalkii qualified ah oo wax u dhigta oo bahalkii helaan waxay wadayaan inay iyagu isdhahaan waa wadi karnaa waa qaban karnaa waa samayn karnaa wayna wadaan wayna ku guulaysteenoo sawirradii hadda arkayseen bacdeen waa qaybtooda already inay soo baastay oo madaanka qaar ku baastay si kooban anoo diidayana hadalka dheereeyo waxaan si kooban idin leeyahay maanta xilliga la joogo adduunka waxaa laga sii guurayaa oo la sii yaraanaya qofku inuu markuu academiga sanad soo qaato shahaadada jaamacadda inuu academicun sii wado of course academigo loo baahan yahay laakiin waxa u baahan tahay haddaad rabtid inaad fiildiga shaqada macna ka samayso inaad wax uun ku noqoto xirfadle ku noqoto oo waxa aad ka jaba keento khasab maaha inuu noqdo accounting wuxuu noqon karaa management wuxuu noqon karaa procurement wuxuu noqon karaa IT laakiin wax uun inaad ku noqoto professional oo aad tidhaahdid this area aniga halkaa waxa laga weydiiyo marka waxay ku noqonaysaa adigana waxay sahlaysaa marketingkaaga oo suuqi ku gelinaysaa fursado badan bay ku abuuraysaa waddankana waxay u noqonaysaa in qofba meel ku hagaago aynu gaarno heer aan dhahno qof hebel wuxuu ku habboon yahay meel hebla hadda laakiin waa la isdhexyaac
qofku meel walba uu geli karaa shaqo walba aragtid waa apply garaysaa waxa weeye as long as degree ay aragtid waa ku tuurtaa laakiin waxaa la rabaa inaynu helno in la yiraahdo shaqadan noocan aan arkay hebel wac fieldiga profession ku ah oo yaqaan si halka u gaarno marka waa inaynu bilownaa inaynu waxyaabaha professionka ka war doono inaynu meel ka gaarno oo idinku dheereeyay gaar hal ahaada inoo sameeyo ustaadku waxaan saacsan doonaa runtii dadka memberska oo aan kala dhicin runtii aan oran karno waxaan u yeeri doonaa ustaad maxamed axmed quube runtii bal si ACCA maxay structure qaab ahaan bay structurekeedu yahay iyo waxyaalaha qofka looga baahan yahay maadaama dad badan oo daneeyaal ama qaybtoodba ku jiraan oo wali ay requirements-ka qaybtooda ama aanay buuxin ama aanay fahansanaynba marka waxaan ustaadka ka rajayn doonaa inuu inoo iftiimin doono soo dhow mudane waxa la yiraahdo focus areas-kaygu ama labada waxay saaranay topic leadibay wuxuu ahaa ACCA waxa la yiraahdo structure iyo requirements marka la leeyahay dabcan waxaan qaadanaynaa entry requirements ama qofka haduu galayo maxaa laga doonayaa haddaan ku hormaro waxa la yiraahdo structure-ka markaan ka sheekeynayno ma kii governance-ga iyo siday u dhisan tahay yaa madax ka ayaa waxaan ka inta ardaynimo inaga naga khusaysaa stageska kala duwan ee uu ardaygu maro sida walaalkay Bashiir uu ka dhawaajiyay meesha loo wada socdaa waa in ACCA member ama xubin laga noqdo maadaama waxaan association ama urur uu yahay si aad halka u gaadhid saddex wax baa laga doonayaa sida ustaadku sheegay kow inaad exams koodan aad ku wada baastid waagii hore 14 book bay ahaan jirtay 10kii sanaba marba ACCA wax la sameeyaa structure-keeda la bedelaa qaabka examination-ka iyo papersku sida isu saaran yihiin laba book baa la isku daray hadda 13 baa laga dhigay iyadoo dhan waxay ka kooban tahay waa 15 book saddexda u horeeya waxa la yiraahdaa knowledge waxa ardayga lagu dhisayaa marka ugu horeyso ardaygu saa u soo galo waa broader introduction into world of finance iyo accounting muxuu yahay waxa ku xiga marka halka ka gudubtid waxa marka saddexda buuga ugu horeysa marka qaadatid waxa certification lagu siinaya waxa la yiraahdaa diploma marka aad saddexda dhameysid baa waxa ku darsanaysaa 6 buug 6da buug waxay ku dhisan yihiin saddexda soo dhaaftay iyo kuwa kale kugu cusub weeye saddex marka ku dartid 6daas waxaad qaadanaysaa certification la yiraahdo advanced diploma oo u dhiganta hadii wax la yiraahdo academic loo bedelo maadaama professional tahay u dhigmaysa bachelor UK markii aad 9 ka qaadatid ayaa waxa ku darsanaysaa waxa galaysaa levelka kale la yiraahdo professionals ka marka laba loo kala qaybiyaa waa 6 book labada hore waa essential waa inaad qaadataa afarta soo hartay marka adigu inta aad doonaysid inaad specialized ku noqotid ka dooranaysaa tusaale ahaan taxation iyo audit rabtid haddii aad taxation iyo finance management rabtid haddii aad performance management taxation rabtid adiga iyo khiyaarkaaga weeye marka 13 book aad baastid inta doontid oo jeerba isku daye haddii ay kugu soo noqoto waxa ku haraya wax la yiraahdo ethics kuna waa waxa any professional qualification ka sooca academic qualification maanta da jaamacadda boosaaso dhameysatid certificate-kaaga aad qaadatid suuqaasaa galaysaa you do whatever you want you are not responsible or you are not accountable for anything unless aad qof adigu isqabanaya aad tahay laakiin jaamacadda boosaaso maanta intay kaa daba timaado haddaad shirkad xisaabteeda aad adigu intaad buugaagta karkarisid aad wax qaldan aad diyaarisid ama haddii aad adigu intaad u diyaarisid aad isku saxiixdid oo wax qaldan aad saxiixdid no one cares laakiin marka la yimaado caalamka professionalka ama medicine ha ahaato ama accounting ha ahaato ama any other profession ha ahaatee waxa ka sooca waxa weeye wax la yiraahdo ethics oo ah qofkan habdhaqankiisa iyo mataqaanaa waxa uu diyaarinayo iyo inuu integrity iyo run inuu ka sheego wax walba lagu dabagalayo maxaa dhacaya marka haddii aad ethics ka jabisid waxa weeye in
way kala duwan yihiin depends waxa aad samaysid hadba inta uu leeyahay waxaa laga yaabaa in registrationka laga saaro oo lagala noqdo ACCA-da oo dhan waxaa macquula in lagu ganaaxo waxaa macquula in suspension lagu sameeyo oo muddo laga joojiyo haddii uu offensiga aad samaysay ama dambiga gashay uu aad u weyn yahay waxaa xataa macquula in aad xabsi ku mudatid sida ka dhacday mataqaana hadda akhridaan iskandaladii dhacay ee waaweynaa ee ay ka dameeyeen dad professionalisa marka wax kale maaha ethicsku just module la diyaariyo weeye waxaa intaa ku xigta inaad 3 sano oo khibrada aad leedahay khibrad kastana la dooni mayo waxa la doonaya wax la yiraahdo waxa ay ugu yeeraan relevance experience khibrad ku haboon waxa aad baratay sida hadaaye ustaad Bashiir ka dhawaajiyay wax la yiraahdo fieldiga kala duwan taxation waa ama inaad ka shaqeysaa inaad advisory tahay inaad accountant tahay inaad financial manager tahay inaad you name it marka as long as waxa aad baratay wax ku haboon aad ka shaqeysid relevance experience baa leedahay 36 bilood ama 3 sano marka qaadatid markaad 13 book baastid hadda sida uu yahay imtixaanku ethics kana aad buuxisid 3 sano experience aan leedahay markaas baa waxa noqonaysaa ACCA member haddii aadan experience-ga lahayn laakiin ethics-ka iyo exam-ka aad samaysid marka waxa ay kugu yeerayaan wax la yiraahdo affiliate oo ah qof uu experience-ga aan lahayn laakiin exams-ka iyo knowledge-ka iyo ethics-ka wax walba u dhameystiran yahay oo kale marka wax la yiraahdo markii aad iyadoo dhan dhameystirtid waxaad marka u dhigantaa masters UK sidoo kale markii aad 9 buug oo hore qaadatid waxaa jirta jaamacad kale oo ay heshiis kula jiraan oo la yiraahdo Oxford Brookes oo ah jaamacadaha ugu wanaagsan bay soo gashaa UK oo ku siinaysa wax la yiraahdo bachelor adigoo wax kale laga doonayn kaliya buuga module-ka ayaa la qoraa ama buuga uu soo dhow wax soo dhow midka hadda inuu thesis-ka ama qalin jabinta aynu dhahno marka iyadoo dhan dhameystiratid haddii aad u baahatid masters oo aad rabtid inaad certificate ka qaadatid caalamka kale academiga University of London oo top 10 universities oo adduunka soo gasha marka qaybtood ayaad ka qaadanaysaa wax la yiraahdo masters laakiin iyaduna requirements kale bay leedahay hadda u baahantiin waa akhrin kartaan waa long journey ina halka gaarno laakiin taasna way jirtaa marka inta kadib hadii mataqaana structure-keedu uu nooca yahay saddexda buug oo horeyso knowledge la yiraahdo kuwa ku xigo skills la yiraahdo iyo kuwa ku xigo professional la yiraahdo ama strategic professional ethics-ka lagu daray 3 sano lagu daray member baa tahay meesha loo wada socdaa waa halkaas meesha hadda jaamacadda markaan dhameynayno semesterka ugu dambeeya aan ka qalin jabino ka tagno ACCA meesha loo wada socdaa waa ACCA member inaad noqotid marka intaas ka xigta sidee loo soo galaa marka wax la yiraahdo caqabad baa halka ka jirta su'aalo badanna waa ka soo noqnoqdaan wax la yiraahdo markii ardaygu soo galay ACCA aynu xaaladda Soomaaliya ku dabaqayno sababtoo ah ACCA ina soo gashay waxa laga doonayaa 5 maado oo labana A level tahay saddexna ay tahay GCSE haddaan inta kaliya caawa damco inaan si guda galo si sharaxo waqti badan bay qaadanaysaa marka inaga dawladii dhexe burburtay wax walbana waa la burbureenay waxbarashadii ka mid tahay marka secondary-ga marka laga baxo caalamka waxa la sii aadaa wax la yiraahdo A level waxa weeye advanced level baa loo sigaabiyay oo ah inaad secondary intaadan jaamacadda ku biirin aad sii wadatid laakiin maadooyinkii secondary-ga aad ku qaadan jirtay inaga ilaa form 4 oo kale in waxna ka haraan inta takhasuska adigu aad rabtid inaad sii aadid marka malihin inagu waxaas ACCA qualification marka la galayo baan sheegaya ma aha ACCA oo dhan marka option-ka kale ku furan waxa weeye inaad marka jaamacad ka soo baxday unfortunately jaamacado badan oo wadankeena ku yaala inta ay badan yihiinba ma aqoonsana ACCA waxaan maleynayaa 2 jaamacadood kaliya baan maqlay jaamacadda la yiraahdo Muqdisho iyo jaamacadda University of Hargeysa dad wata oo baan arkay anigu caadi u galay intii kale ee dad aan arkay jaamacado kale ka soo baxay kulligood foundation-ka galeen foundation-ka laga soo bilaabaa marka foundation-ku waa maxay foundation-ku marka waa meel hoose
waa qof aan tusaale ahaan secondary ka soo bixin A level oo kale aan gaarin oo diploma mataqaanaa u dhigma marka foundationku wuxuu ka kooban yahay 7 buug 7 buug saddexda buug ee ugu sareysa foundation in accountancy ama FIA bay yiraahdaan iyo saddexda buug ee ugu hooseysa ACCA qualification ba isku mid ah ardayda bilowday ee dhigata way yaqaaniin waxaan ka sheekeynayaa waa AB ama accountancy in business financial management waxa la financial accounting ama FA iyo management accounting ama MA markii aad ACCA qualification joogtaan kuwaas waxa la yiraahdaa BT FA iyo MA oo u taagan accountancy in business waagi hore F1 F2 F3 waxa la oran jiray marka waaniga hadda ay sheegay 10 sano oo mar goortii la bedelay ACCA structure-keeda markaas ay FF2 tuureen hadda buugaagta waxay ugu yeeraan waa magacyadooda la soo gaabiyay tusaale ahaan management accounting MA bay ugu yeeraan financial accounting FA bay ugu yeeraan marka aad buuga aad akhrisanaysid labadii magacba wuu wataa haddaad foundation ka joogtidna buuga magaciisi F baa ka hormaraysa tusaale ahaan management accounting waxay ugu yeerayaan foundation management accounting ama FMA kii financial accounting ka waxay ugu yeerayaan FFA ama foundation financial accounting marka haddii ay ku suurtageli weydo in ay ACCA qualification toos u gashid foundationka badana ardaydu waxay sameeysaa isku soo register gareysaa saddexda buug ee ugu sareeya foundationka iyo saddexda buug ee ugu hooseeya qualificationka ba isku mid ah saddexdaas la qaataa afarta kalena waa laga tagaa marka saddexda soo qaadatid oo aad diploma haysatid markaas oo aad u dhigantid qof A level haysta markaas ayaad waxa leedahay email ba loo qoraa ama waa la wacaa ama whatever communication means isticmaashid waxa ii wareejisaan ACCA qualification markaas waxay ku wareejinayaan ACCA qualification markaas halka ka sii wadanaysa buuga ku xiga ee lowga ahaa cidii aragtay say maadooyinku jeclaan lahayn aan aragno lowgii baa ku xiga financial performance management baa ku xiga sidaas ay u soconayaan marka caqabadaas waa caqabad jirta waana reality mataqaana aynu tahay inaynu la dheel garayno wax walba hadii mataqaana ay burbureen waxbarashadeena kama aysan harin marka taasna dib ma aha dad badan oo mataqaana aan garanayo anigu aan ku jiro waxaan ahaa dadkii la yiri jaamacadda aawadeed ma naqaano marka foundation baan ku register gareynayna foundation bay register gareeyeen saddexda bug markaan diyaariyay kuwii kale waan iska daayay markaas aan waxa ay register marka ay transfer gareysan ACCA qualification markaas aan sii watay wax la yiraahdo studies-kaygi wax saameynana ma kugu yeelanayso mar walba buugta waa gali lahayd so it's matter of sida hoolka aan joogna uu laba albaab u leeyahay qof walba uu jecel yahay inuu kan ka soo galo kana dhow laakiin haday ku suurtagali weydo ka dama ka soo galaysa at the end of the day meesha doontid ba ka soo gale qolka waa ku jirtaa aad wax la yiraahdo maxaa laga doonayaa ACCA qualification ama ACCA hadaad ku biiraysid waa saddex documentada cadaynaya waxbarashadu iyo noocyada ay tahay waxa la iska doonayo iyo caqabadaha naga haysta waa ka sheekeeyay waxa kale laga doonayaa waxa weeye proof of identity wax cadaynaya inaad tahay hadaad Faarax Ismaaciil Geedi sheegtid wax cadaynaya inaad hebel tahay oo ah passport ama national ID ama birth certificate waxyaalo noocaas ah sheyga saddexaad ay ka rabaan waxa weeye waa photo ama photograph passport size-ka mid yar waxa afreeya intaas waxa lacagta registration-ka inaad iska bixisid oo ah hadeer maraysa 89 pound ama lacagta Ingiriiska ah oo hadii door loo bedelo roughly $120 meelaha u dhiganta marka ACCA lacagta registration-ka at once baa laga qaadaya lacagta exam-ka mar walba aad exam galaysid baa laga qaadaya sida hadda ustaad ku sheegay marka adigu diyaar tahay baad mataqaana galaysa cidna kugu khasbi mayso sida jaamacadda hadeer semesterka imtixaankiisa ma dhaafi kartid waa inaad gashaa waa ku khasban tahay laakiin midatan adigu maalinta diyaar tahay baa galaysa wax la yiraahdo intaasaan ku soo koobaya runtii waxaan moodaa dadka barnaamijkan oo ku qoran ay yihiin dabcan miid qof kastaana ay qaadan kartaa inuu waqti badan qaadan karo intaanan u gudbin wasiirkeeni hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan u yeeri doonaa halka gabar oo dadka xirfadleydaas ka mid ah oo ku jiro caawa xarunta inuu kula sugan ama goobatan bal
kastoo kaloo la baraya waxay leeyihiin fursado iyo caqabado marka bal caqabadaha qofku uu kala kulmo barashada SCCA-da iyo dhammaan professionaliska kale waxaan soo dhaweynayaa senior lecturer jaamacadda Boosaa member SCCA ah Baaji Cabdirasaaq Abshir. salaan kadib runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo bogaadinayaa jaamacadda Boosaaso oo runtii qaaday tilaabo aysan jaamacadaha kala qaadin. tilaabadahaas oo ka mid ah inay centerkan furtay examka loo fariisto iyo sidoo kale ardayda qaar inay ka caawiso barashada maadooyinkan SCCA-da. insha Allah waxaan kula dardaarmayaa hal mid halka mid waxa weeyaan si hadda inoo sheegaan waxay soo xireen ilaa F4 afarta maado hore waxaan rajeynayaa insha Allah ilaa biyada inay gaari doonaan jaamacadda waayo waxaa jira arday badan oo hadda staff in the middle ah oo u baahan laftirkooda inay maadooyinka dhamaystirtaan iyadana taasaan kula dardaarmaya dardaaran ka bacdi waxaa la ii diray mawduuca challenge dad badan baa waxay ugu dhaheen maalin walba maxaad challenge uga hadashaa meel walba la taga maxaad essay challengeskeeda uga hadashaa runtii qofku markuu ogaado challengeska ayuu ogaan karaa xalka meesha ku jirto su'aalo badanna anigu waan weydiin jiray dadka iga horeeyay khubradda iga horeysa weydiin jiray idinkana I think inaad dadka weydiisaan oo ka mid ah kow markuu qofku yimaado wuxuu ku leeyahay essay ma adag tahay essay ma adag yes of course way adag tahay waxaan saa u oranayaa waxa weeyaan wax walba oo la bartaaba privilege bay leedahay ka soo qaad inuu qofku wax mudnaana helo for example maanta qof baa madaxweynaha wuxuu madaxweyne ku noqday staffka daba ordaya dadka hore uu kacaya mudnaanta la siinayo Soomaa mudnaanta sidaas oo kale baa SCCA inay adkaato ee mudnaan ugu jirtaa in dadka dhan xiiseeyaan يعني waxa adag ee u asababtu adkaatay baa maxay tahay in qofkii dhameeyay markaasi uu mudnaan helo waxaan xasuustaa ardayba waxba motivation gareeyay barigaan dhiganayay aan Uganda joogay waxaana loo keeni jiray sawirku wuxuu ahaa I think inaad aragtaan sawir oo quraarad oo kala ah quraaradaas examiners wadada examka saxa anagu waxaan naqaano ma dad aan aragnana ma aha marka way ceejinayaan muraayada daladii bay ceejinayaan hal qof baa ka dhacaya marka dhug hal qof baa ka dhacaya intaas waxaan u daawan jirnay oo waliba intaan daawacno darbiyada ku dhigsan jirnay waxay ahayd inaan ogaano waxaan inay adag tahay runtii qofka ka baxana uu heli doono maxay inuu heli doono abaalkeeda inuu heli doono waan ognahay Soomaalidu iska lacag jecesha Soomaali title kana iska jecelnahay hadii lagu dhaho halkaas maanta title lagu helayaa ama lacag baa lagu helayaa waan aqaan sida loo kala hormaro waxaan rabaa dhowr challenges horta inaan sheego runtii ayna fiican tahay inaad dhammaantiin ogaataan challengeska inaad ogaataan in isdhaafin problemkan waxa weeyaan wala soo xan jecelnahay wax iska smoothiga oo dhibka inaan comfort zone inaan ka baxnaa ma jecelin laakiin hadday idinka go'an tahay dabcan maanta waxa wada timaadeen waa inaad xogtiisa heshaan سايدين شيئا واحد فودي ما جرت لكن وحكي حرنت هدي ذلكنا واحد جرى مركز دور challenge هذا حكي رسالة دونا challenge external يبقى internal for example واحد جرى Somali as a general أهان challenges إلا ورا كلهم تأردي ذا challenge هذا واحد كم ذا for example إنه معلم لهذي كرنو كله جامعة هذه إنسان مدوين كي ولا بحنو كله waxaa jira wax la yiraahdo sidoo kale finance-ga dadkii dhalinyarta inay wada awoodi kareen waxaa jira oo kale oo challenges ah oo xataa maandhowta arkay aad looga hadlay price discrimination-ka yani waxaa jirta markaad SSC imtixaan ku galayso Soomaaliya waxa laga yaabaa 50% ka 50 pound oo kale inay maadada kurto meesha dad Kenya ka kurto ka gasho kale ama Uganda ka gasho kale ay raqiis tahay laakiin waxaas oo dhan challenge-gaas oo dhan inaad la kulantaan idinka ina caawimaysaa oo challenge externalka waxa ka bixi kara kaliya maxay qof ee ka soo go'do wixii internally for example waxa kamid ah anu maada aad ii dhibtay baa jirtay maadadaas waxay ahayd maada before la yiraahdo waad arki doontaan insha Allah hadda gaartaan maadadaas around 3 times bay soo noqotay waxa is dhihi karaya waa
waa maadada aan hadda ugu jecelahay haddana way igu soo noqotay in badan markii afraad baan ka baasay saasay tahay haddana waxaan sameynayay centerka waxaan u aadayay xamar baan u aadayay inkastoo wasaaradda maaliyadda ee xoogaa ay kabaysay laakiin mar walba centerka waxaan u aadayay xamar baan u aadayay marka aron waxaa laga yaabaa qofka 600 inuu tigidhkiisa meeshuu degay waxaasoo dhan inay ku baxdo laakiin haddana waxay ugu kaliftay inaan isdhiibin bal qof maada ay 3 jeer kusoo noqoto waa 3 semester it means waa year ba u dhowdaha soo ma wana awoodi karay inaan tuuro oo iraahdo waan awoodi karay inaan tuuro oo dhaho waxaan ma awoodi karaba si u gelaya laakiin haddana mar walba niyad waxaan ku hayaa maxay wendey wad dhamaynaysaa Soomaalida waxay ku maahmaahdaa fadhi iyo foodi cibaad la isku helo haddaan dhaho waan seexanaya miyaan helayaa ma helaysaa soo qof walba idinka idin ka mid ah waxaan qisadayna kuu sheegayaa waxa weeyaan inaad ku tusaale qaadataan qofkana way fiican tahay dhanka wanaagsan iyo dhanka xun bay noo sheego actually maadadaasna waa maadada aan hadda all contentigeeda dhan aan garanayo haddii lagu dhaho hadda halka istaago dareeri waxa laga yaabaa wada dareerin karo waa maadada aan ugu jecelahay hadda runtii way dhibtay waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego barigaan bilaabayay aroon 30 qof baan ku bilownay 30 qof meelahaas baan ku bilownay waxaan u malaynayaa 5 qof 4 qof meelahaas aan kaga baxnay it means 85% oo 87% dadka galaa ma socdaan waxaan rabaa sababay u socon waayeen marka ilaa waxaan waa lagu oran karaa wuu fiican yahay waa lagu oranayaa waxbaad ku helaysaa laakiin waxyaalo yar yar oo la rabo in adigu ka baxdaa baa jira for example haddaan intaan is-register garayo oo aan processka la igu talagala aan raacin oo shortcut badan iska leesiin baan xarna last day wax akhrino oo shortcut isticmaalo aan dhaho okay buugana wuxuu ka hadlay 100 page buugga 100 page ba akhrinaya imtixaankan galaya runtii soo dhacaysa waxa lagu siiyay study guidance baa lagu siiyay inaad tagto intaadan maadadii bilaabin oo kale aad tiraahdo maadadan okay maxay total ka hadlaysaa maadadan maxay ka hadlaysaa waxa laga yaabaa 24 chapter inay tahay 30 chapter inay tahay which chapter baa muhiim ah oo max ka balan qaadanaya inaad rabtarkeeda eegto study-gu hadduu ka kooban yahay 600 page 600 page waa inaad akhrido maaha inaad u qori tuurto aminad sida aan naqaan dhamaanteen 600 page haday tahay 600 page akhrido markaad study-ga dhamayso marka bahadana waxa laga rabaa maxay inaad kidka gasho kidka waa kiisas lagu keenayo weeyaan kiisaska inaad gasho dan kiisaskaasi aad si fiican deeply u practice garayso still ma dhamaan labada hadaa dhamayso waan gelayaa ma waxaa jira articles lagu diyaariyay waxaa jirta imtixaan ay istijaabinayso inaad samaysid waxaasoo dhan markaad samayso oo waliba aad u samayso si effective u samayso markaas ba waxaad oran karaysaa maxay maadadaasi ready baan u haynaa galo dan waa baasaysaa laakiin haddaan 20 page book akhriyo oo kid laba su'aalooda ka shaqeeyo oo hadhow yiraahdo imtixaankii baan gelayaa ka hor miyaa la baasayaa lama baasayo waxa laga yaabaa jaamacada caadiga inaad baasto laakiin tan ma baasaysid waxay kaa rabtaa practical badan waxay kaa rabtaa ku celcelin intaa markaad samayso baad imtixaankii baasaysaa taas waa challengeska badan ardayda isdhaafiyaan waxaa dhici karaysa oo kale qofku markuu 2 jeer soo dhaco ama 3 jeer soo dhaco oo waliba maadooyinka bilowga uu ku jiro inuu dhaho ma wadi karo iska dhiibo oo markaas uu ka seexdo and then waxaad arkaysaa qof dhowr iyo 10 sano 20 sano ku oranaya baashaas uma baahna inaan gal laakiin wallahi wali gudoomiyaha kama wado laakiin I mean kama wado iyadu waxay sheegtay gudoomiyaha waxay sheegtay iyada laakiin dad badan waan arkay oo oranaya ma wadi karaya laakiin ma wadi karaya waxa ma jirto haddii adigu markaas aad diyaar tahay no waxaa jira sidoo kale aan rabaa challengeska inaan idin sheego ardaygu inuu time management leeyahay all challenge-ga idin sheegaya wada ogtihiin laakiin qofka ma rabo inuu abaaro xadiis baa jira ahaa in allaha yuhibbu axadakum idaa camala camalakum an yutqinu camal haddaad rabto inaad qabato waa inaad say tahay uga soo baxdid waxaa lagu yiri neef bire laakiin sida ugu xalasan u bire markaad shaqadii qabanayso adoo challengeska iyo dhan wax walba og
haddana waxaa la rabaa inay saytaa uga soo baxdo aadan isdhiiban oo kale way kugu soo noqonaysaa waad ka baasi karaysaa no problem laakiin inaad u tafaxaylato maca daalika haddana inta sano aad ku qaadan karto dhib ma leh aduu almuhim inaad imtixaanka every semester inaad tiraahdo okay semesterkaani waan gelayaa laakiin lama rabo shortcut lama rabo cheating lama rabo waxaa la rabaa study guidance-ga lagu siiyey inaad saada sheegay aad u soo marto markaad soo marto lacagtii bixisid adoo hubo markaa maadada inaad baasayso inaad maadada gashid حتى واحد شر امتحانات السكو تجابي سما majority وضع عرفتين امتحان كقل if 80% above كنتو ready بقولتين exam بقشي لكن هذا لو أهين لبدا هذا بقوله بالرأس كخسارة سكيب قريسو وايقا انتا opportunity بدن ولا هذا هاي فهمتي waxa wax loo bartaana sideeda horta ma aha in lacag badan la helo sana hay waxa weeyaan in qofku timekiisii iyo wuxuu u noolaa inuu ka faa'iideysto weeyaan runtii markaad maadadan dhamaysana qof waxaa tahay well trained aad loo soo train gareeyay for example waxa laga yaabaa every paper oo muddo 2 sano ama 3 sano ah inaa 4 hours gelinaysa daily baa laga yaabaa maadadaas so wada markaa dhamayso waxaa leedahay maxaan qabtaa ilaan all time kaagi oo dhan halkaas aad gelin jirtay so maxay noqonaysaa qofkii inuu shaqadii u train gareysnaado oo ka soo bixi karayo inuu ada qualification raadsado ka soo bixi karayo marka all opportunity gaas leedahay salary maybe laakiin camalka dad qabanaysaan si wanaagsan u qabta waxbarashadana waa very important hatta hada jaamacada dhigataan inaad baastaan muhiim ah laftirkeeda muhiim waxay tahay inaad cilmigeeda ku jiray aad si fiican u fahantaan assalaamu calaykum waxaan u yeerayaa wasiirkeenii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cali xaaji warsame runtii wayna ku qoran toobinka ah bal xirfadaha kani suuq ahaan waxay maanta puntland ka goyn karaan iyo soomaaliya maamulka jaamacadda University of Bosaso professionalska halkan fadhiya oo caawa panelka ka kooban ardayda qaybaheeda kala duwan iyo inta warkeenu gaari doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaad moodaa inay aniga farax ii tahay farax gaar ah caawa inaan idinkala soo qayb galo barnaamijkan lagu launch garaynayo exam center professional exam center oo ku bilaaban doona ACCA laakiin intii kale oo professional qualifications ka ahaydna lagu gali doono mustaqbalka insha Allah haday sifa tahay iyo haday siima tahay iyo haday CBA tahay iyo haday kuwa kale tahayba runtii Bosaso University aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa fursadan waxaan isleeyahay dad Soomaaliyeed oo khubaro ah oo waxaan yaqaan saad u arkayseen hadda teamkii ugu horeeyay waxba aan ka tagin baad haysataan runtii aniga laftigayga waxay ii tahay farxad labaad inay jiraan dad sidaas oo kale highly qualified ah oo aad u garanaya professionkan ACCA si gaar ah iyo guud ahaan professionska kale anigu active waxaan ku hay Twitter-ka waxaan aad u naxaa dhalinyaro fara badan baa isoo codsatay inaan ama follow gareeyo ama la socdo markaan fiirsho profile-kooda 70% waxaa ka soo baxa political analyst xirfad maaha qaarkood waxay ku leeyihiin social guru qaarkood waxay leeyihiin maaragtay laakiin markaan arko qof professional qualifications ayda haysta ama daba socda حتى هدي لما قف أي رأسن تهاي وقف قوافل وقري محاير دنا عنا نيرجلين بي تهاي ساق دنا عنا أنا جاي تهاي قيمين جارة رنتي ولا جسوا شيء كي بروسيس كا الله مريو شهادة ACCA دا ولا جسوا شيء كي what it takes to get the certificate محل جنبه هنا certificate كان هيشيد لكن وحنا كم مرة من باكره ورجيدو حسام السوق ليس waxaan rabaa inaan idin sheego aad iyo aad bay fursad u leedahay professional qualificationsku maantay waxay yihiin very scarce way aad iyo aad bay u yar yihiin dad fara badan baa wadankeena looga baahan yahay waad maqasheen barnaamijkan BFM ka Soomaaliland maqal barnaamijkaas waxa loo keenay millions of dollars oo lagu kharash gareynayay waxay ahayd Soomaaliya
mainly shaqaalaha dowladda in laga soo saaro dad are professionally qualified inkastoo ACC aysan iyagu qaadanaynin laakiin shahaado u dhiganta oo sifa bay qaadanayeen aniga Bashiirba waxaanu ka mid ahay dadkii macallimiinta u ahaa oo teamkii certificate levelka iyo diploma levelka labadaba man qof walba oo qaatay diplomada ama qaatay certificate-ka automatically wuxuu ka dareemay base salary-giisa iyo meeshu ka shaqeynay iyo waliba title ku haystay buu ka dareemay dad fara badan oo kamid ah waxay ka imaanayeen wasaaradaha maamul goboleedyada bay ka imaanayeen waxay ahaayeen koox baa looga soo qaadayay maamul kasta qof walba markuu noqday oo shahaadii qaatay aad iyo aad buu uga faa'iiday waxa ugu liitay do I say it ma yiraahdaa waxa ugu liitay ardadaas waxa laga bixinayay fiiga imtixaanka waxa laga bixinayay bugaagta waxa laga bixinayay macallimiinta waxa laga bixinayay supportiga laakiin nasiib daro in fara badan baan ka faa'iideysan I am very sorry to say ina iraahdo waa xanuun bay igu haysaa dad fara badan oo fursad ah helay diploma level oo helay macallimiin ula dhaqmaysanod inay macallimiin u yihiin laakiin raba inay macallimiinta inay ardadaasi waxna bartaan baasaana ayaa laakiin in fara badan baa ka faa'iideysatay marka opportunity fara badan bay leedahay anigu markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay CBA 1999 marka intiina badan ma dhalan baan u malaynay Soomaa 1999 baan qaatay waqtigaas CBA waxa lagu qaadi jiray Mareykanka oo kaliya qofka raba inuu CBA noqdo waa inuu Mareykan aadaa waxaana la qaadi jiray 2 jeer kaliya sanadkii May iyo November labada jeer kaliya aad gali kadhaa Mareykan meel aan hayna kuma gali kartid haddaan ka sheekeeyo hadda kordada uga sheekin jir waqti uma haysano mar baan idinka sheekeyn doona wixii naga gaaray iyo sidaan u bixi lahayn iyo sidaan diyaaradda u raaci lahayn fiisada u heli lahayn maanta alxamdulillah rabbil caalamiin you have the center in Garowe shaqadii aad rabtay imtixaanka inaad gashidaha aad ka helaysid wax weyn way runtii oo anigoo kale inay soo marto aan jeclaan lahaa laakiin fursadda marka inay fursad qaali tahay in la ogaado loo baahan yahay haddaad shahaadan qaadataan waxaan garanti garaynaynaa inaad shaqo ku haboon helaysaa ragga teamka halkaan fadhiin badan oo kamid ah CFO iska shirkadaha wadanka u waaweyn ayay ka soo shaqeeyeen lacagta haday noo sheegaana xoogaa fiican bay qaadan jireen marka insha Allah it pays off dadaalka aad samaysid iyo inaad waqti galisida bahasha sheegtay oo aadan marna niyad jabinin waxay keenaysaa ugu dambeyn inaad natiijada aad ka sugaysid aad ka hesho waxa runtii ina farxad kala ah in ACC kaliya aan lagu qaadan doonin shaqaalaha dawladda sifay qaataan waa Certified Institute of Public Finance and Accountancy waxa jira mustaqbalka CBA bay ka dhigi ku soo dari karaan SIMA oo qofkii raba inuu aado more management and accounting inuu more management aado ayaa iyaduna jirta institutionskaasi dhexdooda way ka wada xariiraan hadaad mid qaadatid midda kale waxa laga yaabaa inay ku siiso exemption boqolkiiba 50 boqolkiiba 40 boqolkiiba 30 sida daraadeed waxaad arkaysaa qof ay isu raacsan tahay ACC CBA SIMA SIFA CAT whatever maxaa yeelay mid markuu qaato midda kale waxay u riixaysaa inuu exemption la siiyo saad maqlaysan hadda uu noo sheegay ninka la yiraahdo war magaciina naas maxay ahayd qowbe soo noo sheegay waxa fursada inaad adiga oo aan waliga jaamacad dhigan inaad hesho inaad jaamacad qaato bachelorki adigoo waliga master qaadan in ACC adoo bachelor wata ACC markaad qaadato automatically waxa laga rabaa inaad qorto thesis oo kali ah wax kale aad ku noqonaysaa ma jiraan dad fara badan baana sida ku qaatay marka fursado fara badan oo shaqo ah oo aqoon ah oo in ay ku itiraafaan institutions kala ah adduunka meel alla meesha tagto ayaad helaysaa hadaad halkan ka qaadatid waxaad tagaysaa wadanka ku dhow waxaad tagaysaa adduunka waxaad tagaysaa UK waxaad tagaysaa Kenya kulli waa lagu itiraafaya shahaadadaada waxa qodob muhiim ah oo runtii aan jeclaan lahayn inaan ku kaba teamka lacagta marka laga soo tago aqoontu iyada sideeda muhiim u ah professional qualifications kuna waa kasi muhiimsan tahay wadankeenan waxa uusan la soo kaban doonin ama la soo kaban doonaa waxa weeye sida aynu skillskan u keeno dawladda Soomaaliyeed oo anagu aan soo gaarnay secondary schoolska intay leeyihiin waxa jira dhowr iyo 30 ama dhowr iyo 40 technical schools oo secondary ah oo caafimaadka xanaanada xoolaha ah oo ah nursery-ga ah oo midwife-ka ah
oo accounting-ka ah annagu sii dambaan aadnay inkastoo marka dambe sii dam bachelor laga dhigay full ah markii dambe oo masterna la keenay aakhirkii laakiin haddana Soomaaliya waxay lahayd intaasu institution bay lahayd marka waxaynu ku soconnaahi ma ku gaari karno waxa la rabaa adduunka skills baa la rabaa yaa adduunka ma taqaanin dadka adduunka ugu mushahar badan yaa kamida ma taqaanin waxa kamida timo jaraha waxa kamida kuuga cuntada kariya waxa kamida balambarka sameeya tubooyinka waa dadka adduunka lacagta ugu badan hela why maxay they are technically qualified accountants waa safka ku soo xiga weeye marka wadankan hadii la rabo inuu jiro hadii la rabo inuu shaqeeyo waxa la raba inaynaan academic qualifications kaliya hadda 10,000 ay noo soo baxda market ma taqaana professionalisa waa laga shaqeynaysaa marketkeeno dhan waa kooban 10,000 oo human resource ma taqaan specialists oo halkee ka shaqeynaysa imisa hay'ad ba qaadan ka dhaa hay'ad kasta hal qof bay u baahan tahay ama 2 qof ama 3 qof marka employability-ga accounting-ga meel alla meesha doontid taraad ka tagaysaa hadda ragga teamkan rag baa waxay ahaayeen madax sare waa ka tageen meel kale aadeen madax bay ka noqdeen meel kale sii marayaan hadda iyaga raba inay shaqeystaan marka waxaad helaysaa opportunities massive ah markaad professionally qualified tahay aad iyo aad baan ardada ugu xoojinayaa sida ay bahja sheegtay sida uu sheegay ninka la yiraahdo Bashiir iyo teamkuba waxa weeye wax adag ma jiraan haddaadan adigu isku adkayn and nothing impossible until you think that is impossible adiga haddaadan iska dhaadhicin waxa ma samayn karid waxaan la samayn karin ma jiro if someone else can do it you can do it qofku la mid oo maanta fadhiyo wadanka jooga hadduu sameeyay adiguna waad samayn kartaa marka aad iyo aad baan runtii u bogaadinaya Boosas University waxaan insha Allah ballan qaadayaa intaan teamka aniga aan kamid ahay waxa jira waxyaalaha ardada marka qaarkood looga baahdo oo la yiraahdo practical experience requirements waxa la rabaa sometimes in aad hesho qof ku supervisor ku noqda oo already qualified marka haddii aad soo gaartaan stage-kaas inta yadaani waxaan idin ballan qaadi doonaa iyo inta kale iyaguna professionalist-ka inaan idinku caawino inaanu idin noqono mentors idinku guide gareeya inaad heshaan professional qualifications maxaa yeelay dad fara badan oo waxaa jira qualified laakiin aan ahayn anaga dadkaan soo wada baxnay in badan oo kamid ah waxay noqdeen CBA ama SIFA waxay doonaan ha aadeen laakiin ma ay noqon licensed ma noqonin marka stage labaad baa jira oo qofka raba inuu audit-kii halka aado ama professionalist-ka kale laga rabo inuu qofku experience leeyahay waxa kale oo kamid ah shahaada laftiga inaad qaadato experience-gu waa ku xiran yahay marka wixii annaga tala ah wixii tusaale ah ama ha noqoto dhinaca jaamacadda academic side-ka ama dhinaca ardayda ha noqotee diyaar baan idiin nahay runtii teamka cid ka khibrad badan oo Soomaaliya laga raadinaya anigu ma qaba inay jirto intaan meel soo marayay you have wax alla waxaad u baahnayd cid ka caawin ka dhah ama imtixaan ka noqoto ama talada ha noqoto marka warkayga waxaan ku soo gaabinayaa there is a lot of opportunities fursado badan ba halka ka muuqda yaan la dayicin ha kugu qaata 3 sano 4 sano 5 sano adoo shaqaale ah adoo meel jooga waxaad wadaahay aakhirkiisa waad gaaraysaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha Merit Advisory Service runtii ka mid ah barnaamijka nacaaw qayb ka mid ah martideena oo ka timi banaanka runtii muhiimadda ay leedahay professional accountancy ama xirfadaha xisaabaadku muhiimadda ay u leeyihiin private iyo public sectors Puntland iyo Soomaaliya marka mudan soo dhaw Burhaan Ismaaciil Xasan xirfadooda ganahay ardada iyo saxaafadda cidda kale oo meedaankan joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo jaamacadda Boosaaso oo xaqiiqdii muujisay hal abuur iyo dadaal dheeri ah marka aan ka fiirino dhinaca accounting-ka iyo contribution-ka ay ku darsadeen jaamacadda waxyaabaha aan xusi karo oo ay ku mudan tahay in loogu mahadceliyo oo centerka markii laga soo tago intaan xusuusto waa jaamacaddii Puntland jaamacadaha ka jira ugu horeysay ee pure accounting samaysa ma jirin
kooriska noocaas waxaan xusuustaa anigu markaan gelayay ACCA-da horta dadka hadda challenges baa lagu bajiyay waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu horta angalkan ka imid markaan idiin sheego dhiirigelin buu idiin noqon doonaa IT baan ka imid markaan ACCA-da gelayay accounting line marka waxaan xusuustaa waxaan aad u raadshay bureau accounting waxaan maray ugu yaraan 3 jaamacadood oo mid walba intaan iska diiwaan geliyay ka tagay marka arkay inay ay anfacayno 20 maado oo kala duwan oo anigu marka aan relevant u arkayn dhabarka la ii saarayaan ka dhaqaaqo marka way ku amaanan yihiin dadaalada aan xusuusto waxaan xusuustaa Fawsiyo waa soo wada kifaacnay iyo Cabdirasaaq qowlaha dacwo ma joogo 2015 baa arday yimaadeen waxay dhaheen la caawiyaan rabnaa markaas anigu waa dhameyn rabay ACCA xarumaan tagnay garow ku yaala oo waaweyn oo facility haysta marka anigu waxaan ku iri khamiistii jimcadan idinku contribute gareynaya waxaan xusuustaa marka boosaaso marka ma xusuusano way yaray maskaxdayda kuma soo dhicin meelo badan baa tagnay waankii dambe Cabdirasaaq waan meel isku aragnay waxaan ku iri horniyow arday baa tiri nacaaw meel wax ugu dhigaan waay marka oo soo kaxay Fawsiyo ii keenay khamiis iyo jimcada Fawsiyo wanaala shaqeyn jirtay waxaan xiisada lagu qaadan jiray jaamacadda marka deganeed campus yar oo ku yaala meesha la yiraahdo ku yaala hada alwaaxa agisay taa waxay qaadeen xaqiiqdii horumar la sameyn karo bay sameysay jaamacaddu la taaban karo xaruntan imtixaanaadka inay soo kordhiyaan sidoo kale macnaha ay leedahay waa laga hadlay laakiin haddaan si financial uga hadlo anu waxaan xusuustaa waxyaabaha in ACCA dhamay success-keeda kamid ah xarun baa markaa ku taalay garow bahasho waa maqlayseen hadda waxay tiri 600 baa maado kasta lagu soo galay 9 maadaan ku gal 9 maado hadii 600 lagu dhufto waa intee ya intaasaan ka safe gareeyay marka oo intaasay ku safe gareynaysaa dadaalka maanta ay sameeyeen waxa xusid mudan xarumihii muhiimka ahaa ee dadku imtixaan ku galayeen noocaas ah inay xirmeen isla markaasna dadku saafar gareynayeen oo aad maqlaysid Muqdisho aadayeen marka xaqiiqdii aad baan markale ugu mahad celinayaa inay dadaalkaas qaateen waxay muujinaysaa inaysan dhaqaale ka raadinayn haday dhaqaale ka raadinayeen kuwii hore ku furaan lahaa inay tahay contribution ay dadka u sameynayaan oo ay bulshada ku garab istaagayaan marka waa uga mahad celinaa xaqiiqdii waxaan jecelahay inaan wax yar dul istaago oo markii la weydiiyo horta xisaabiyuhu muhiimaddu u leeyahay businesska maxay tahay maxaad ugu taallaa waxaa jirta horta ganacsi marka la sameynayo maxaa loo sameeyaa faa'iido waxa la yiraahdo marka xisaabiyaasha markaan waxaan idhaahnaa bottom line-ka waa ugu muhiimsan ganacsi kasta waa shaqada xisaabiyuhu gacanta ku hayo bottom line-ku wuxuu ka soo baxaa profit and loss markaad shaqaysid oo wax rogrogtid oo hawl qabatid hawlgalkaaga waxa ka soo baxay jawaabteedu waxa weeye waa net profit-ka ku soo baxa without xisaabiye net profit sax ma helaysid wealthigaaguna ma kordhiyo waxyaabaha xisaabiyaasha xilliyadan dambe macnaha badan leh oo lagu xusuusto waxa weeye xisaabiyaha waagi hore bean counter baa la oran jiray bean counter wuxuu ahaa nin waxa weeye wax tiriya laba ku dar waxa weeye journal wax ka rar ledger ka rar trial balance u rar maanta ma jirto intiiba waxa qabta QuickBook iyo software la automate gareeyay shaqada aad qabanaysaa waa maxay ina value abuurtid waa marka qodobka xisaabiyaasha maanta macnaha ugu weyn ay ku leeyihiin waxa waaye value creation waxa waaye inaad bixisid talo mira dhal ah oo go'aan lagu qaadan karo mataqaana ka qayb qaadatid in la sameeyo ganacsi waara isla markaasna mataqaana input sax ah ku sameysid qorshayaasha la sameynayo ee ganacsiga waxyaabaha xisaabiyaashu ay macnaha u leeyihiin waxa kamid ah sustainability-ga cid support garayso oo
cilmi baaris badan oo la sameeyay economic sustainable in la gaaro waxa sal u ah baa la ogaaday in la haysto xisaabaad sax waxaa jirta 2016 aan Malaysia ka akhriyay waxay ogaadeen inay u baahan yihiin si ay wadan super ah xagga dhaqaalaha iyo accountability u noqdaan inay 70,000 oo professional accountants u baahan yihiin markaas waxay ogaadeen inay 40,000 haystaan 2020 marka waxay u baahdeen inay 70,000 haystaan inta u dhaxaysa 4 sano waxa way sidii u soo saari lahaayeen dadaalkeedii bay galeen waxyaabaha sameeyay waxa kamid ahayd jaamacadahoodii syllabuskoodii oo dhan bay inta SCA u yeereen bay bedeleen ka bacdigeedna full exemption ba ardayda loo sameyn jiray waxaan u maleynayaa markay inay goolkoodii kale gaareen laakiin muhiimadda ay leedahay muujinaysaa dhaqaalaha ama economic performance-ga saameyn bay ku leeyihiin waxyaabaha aan xusi karo waxa kamid ah laakiin oo ina xusuusataan iyaduna muhiimka ah meelaha uusan ka jirin structure-ka nidaamsan ee horumarka dhinaca waxa kan leeyahay sharciyada iyo adigu sad businesskaaga u maamulinaysid inay jirto baahi laga rabo inaad dabaqdid aysan ka jirin xisaabiyaashu challenges bay ku qabaan marka mararka qaarkood waxaad noqonaysaa the elephant in the room waxa la yiraahdo nin inta qaylinahayo waxa uu ka hadlayaa is relevant time because baahi ma jirto requirement ma jiro haddii dawladda Soomaaliya iyo Puntland ganacsi walba maanta uga baahnaan lahayn XYZ inaynu u yeerino way fududaan lahayn marka taasna waa dulmar specifically marka xisaabiyaashu waxyaabaha ay ganacsiga ugu yaalaan waxa kamid ah in uu ganacsiga ahaado helo akoon sax akoonada saxda in la helo waxyaabo badan baa la xiriiro dadka auditka iyo garanaya khatarti baa yaraanaysa isla xisaabtankii baa badanaya hanti badan oo kaalmo milahayd baa ilaashanaysa waxyaabaha asalka ah oo hadda aan idin sheegi karo waxa weeye ganacsiyasheena ku dhiban yihiin qofku deymihii ka maqnaa ma soo aruursan karo sababtoo warba kama hayo marka waa symbol inaad taas fahantaan waxyaabaha muhiimka ah xisaabiyuhu keeni kara waxa kamid ah inuu yimaado isla xisaabtan taas oo keenta laba waxyaabood ba inuu mataqaana trust yimaado oo dadka ganacsiga wadale Soomaaliyeed inta badan waxay ogtiin waxa isugu dhacaan iska shaki ay kala shakiyeen wariya meesha adan kaaga tagay xaqiiqiisa waxaan adii soo xisaabinaysid adaa soo dhoodhoobay iyo hadhowna ku kala tagayaan businesskaas oo 10 qof ka shaqeynaysa 20 qof baa lagu kala tagayaa marka dadkii wax wada lahaa in isku kalsoonaadaan in ganacsiga koro iyo in la isla xisaabtamo ama shaqaalaha laga xisaabtamo laftigooda ma jirto maanta shaqaalaha sax loo xisaabtamo sababtoo ah marka aniga $5 ku dirsado oo aad $3 ii keentay markaas xisaab imaan kartaa laakiin hadan $3 marka ii keento sacabiyo aan ogeyn waxaan ka rabay waxa weeye waxba meesha ma yaalaan xisaabiyuhu wuxuu sahli karaa ama xisaabaadku go'aan qaadashada in informed decisions la gaaro decisionska saxda ah oo xogta ku salaysan waxyaabaha ka hortagan waxa kamid ah in overspending la sameeyo waxa kamid ah in underspending la sameeyo ganacsigaaga hadda si sax ah u investigate weydid daaqadu ka baxaya hadda investment ka badan gelisidna ritaankiisa yaraanaya qanaacadi baa dhulumaysa iyo plateauin waxa la yiraahdaa ina meel cilla istaagtay oo dhagax noqotay hadda xagga u socon weey jeega u dhacaysa marka dambe hadda meel iska taagneed waxa sidoo kale ay sahlaan in qorshayaasha la sameystay la cabiro haddaan measures jirin iyo controls iyo checkpoints wixii la dhigtay ma shaqeynayaan marka waa waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah ay caawiyaan inuu qofku helo maalgelin ama deyn oo shirkadaha adduunka hal standard oo xisaabaadaha la tabaqaa hadee marka qofku inuu investment meel un ka doonto financial report-kiisana uu yiraahdo anigu financial report-kayga noocaas aan raaca hadhowna la xaqiijiyo la yiraahdo ma raacay wanka waa fiican yahay waa lala midoobi kara waxba uma qarsoona taas baa sahli karta deyntii sidoo kale weeye marka waxyaabaha muhiimka ah waa garan kartaan soo baxa marka qofka ama maalgelin dad kala macaamilay ama deyn kala macaamilay oo financial statements haddaysan soo bixin waxa kale la yiraahdo cidna lama communicate gareyn kadib businesskaaga financial statements ka soo saara xisaabiya soo saara sidoo kalena waxa kale la yiraahdo financial statements kaagu macna ma yeelanayaan haddaysan sax ahayn
inay saxnaadaanna waxay ku xiran tahay inaad xisaabiyo sax u heshid. waxay kaloo caawiyaan canshuuraha oo dhinaca kale markii laga fiirsho dee dhaqaalaha iyo waddanka wax ugu yaalla. inagu waxaa kale la yidhahdaa canshuurta waa la iska macaamilaa, laakiin dowladdu hadday canshuurta nidaamiso, dowladda iyo ganacsiga labadaba xisaabiyaashu waa caawiyaan, sababtoo ah taxi filinka iyo financial returnsku mararka qaarkood meelaha ugu badan oo uu ka yimaado penaltieska. cali baa wadamada horumar ka yimid oo naga badiya, laakiin nagu waa akhrinay. khatarta yaraysaa waxyaabaha oo xisaabiyaasha contributionkooda lagu ogaaday waxaa ka mid ahayd markii COVID-19 ku dhacay. waxaa la ogaaday in businesska la transform gareeyo, models sustainable la sameeyo. kii waxa u noqday xisaabiyaasha sababtoo ah xogtii bay hayaan. sidoo kalena waxa weeye dee dadka warka ku qancin jiray oo marketingka ka shaqayn jiray shaqadoodii waa istaagtay sababtoo ah contact ma jiro, guryaha la fadhiyaa. marka nin in dhowr weliga ahaan jiray unbaa wax ku biirin karaa markaasoo kaleeto. waxaan jeclahay marka waxa weeye hore loo xusay anigu shirkad Merit la yiraahdo oo ka shaqeysa consultingka businesska baan qorjooga ka ahay. marka waxa kale la yiraahdo waxaan jeclahay inaan marka waxyaabaha aan teamka ku biirin karno haddii alla idmo. marka waxyaabaha aan samayn doono waxa kamid ah tuushinkii in la helo, waxay in arday badan oo ayaga macmiil u noqoto la helo. technically waxa kale la yiraahdo ama invigilationka ha noqoto ama waxa maaragtay ha noqoto waxyaabaha kale waa ka caawin doona. sidoo kaleeto waxaan jecelnahay insha Allah inaanu ka gacan siino shaqo abuurka oo dadka meesha ka soo baxo tayada leh shaqana waa u raadinayna, anaguna waa shaqaalaysiinayna. waxaan kaloo jecelnahay inaan kala shaqayn doonaa in ay helaan shahaadooyinka jaamacaddu recognition dhanka ACCA-da oo aan syllabuskii la review garayno, ACCA-dana la xiriirno mataqaanaa aan petition samayno nidhaano aqoonsada. taasna waa kala shaqayn doonaa haddii alla idmo. marka intaa ka suko waxaan jeclahay inaan talooyinka ku daro kolley dhinaca ardayda oo kaleeto xarunta laga faa'iideysto. sida la sheegay certificationku waa muhiim. waxaa idinku darayaa anigu ACCA-da waddanka ku qaato, marka waxaa kale la yiraahdo kolley qorshe un baan lahaayo ku baasay. marka qorshihii waxaan jeclahay sida xaaji cali oo kaleeto waxaan mar kale aan ka dhigayaa si aan waqtiga idinku dheerayn. waxaan jeclahay intaad waqti samaysataan. sideedana anigu intaan ACCA-da ka arkay laba waxyaabood baa idin sheegayaa. mid waxa weeye waxa kale la yiraahdo horta waxbarashadu ma adka. ACCA inaad ka fargaraysid contentigeeda ma adka. waxa adag waa examka sida loo galo. examka techniques buu leeyahay. waxaad u baahan tahay inaad fahantid techniqueska examka. qofka hadduu fahmo habka examka loo galo dee waxa weeye casharka haddaad Frankfurt ka soo akhrisatid iyo haddaad XYZ ka soo akhrisatid haddaad material ka soo akhrisatid waa isku mid. midda labaadna waxa weeye wuxuu leeyahay maaddo kasta syllabus bay leedahay. syllabuskuna wuxuu leeyahay objectives. anigu intaan xusuusto waxyaabaha aan focus ka saari jiray waxa inaan objectiveska achieve gareeyo. mararka qaarkood buugta waxaan sameyn jiray intaanba ka leexdo baan buug kale oo academic oo meel kale yaala akhrisan jiray. sababtoo ah adiga marka lagu yiraahdo waxa laga rabaa inaad materiality fahantid oo waxa kan la yiraahdo understand and apply materiality weeye lagu yiraahdo objective-ka laga rabo. ama bahasha ka soo akhriso ama YouTube ka dhageyso ama maxaa laga rabaa inaad objective-ka mid garaysid. anigu in badan aan arkay meelaha failure-ka ka yimaado waxa weeye inaan qofku fahmin objectives-kii laga rabay. marka waxyaabaha kalena insha Allah gadaal baan u dhiganayaa. jaamacadda waxaan jeclahay xarunta cusub inaan ayagana ku yara dhiirigeliyo in ay xaruntaas ilaaliyaan waxyaabaha asaasiga ah oo ay ka mid tahay conditionska xarunta lagu siiyay oo kale.
waxyaabaha aan xusuusto oo xarumaha dadka Soomaalida ah ee meelaha dadku u baahan yihiin loo dhiibo inta badan aan ku arkay waxa weeye qofkii lama xisaabtama asagii baa his own king noqda marka dambe markaas la waayay oo telefoonka qaban waayay waxyaabaha anigu Nairobi marba imtixaan u tagay dadkaas si fiican bay ilaahay Hargeysa intaan dhowr jeer baan imtixaan u tagay ninka imtixaanka qaada waxa xusuusta waa lagu yaqaanay telefoonka ma qabtaa la oran jiray garowe sidoo kale xaruntii ku taalay ninka jooga telefoonka ma qabtaa la oran jiray iska dulqaado waa xanaaqa ninkaas hadii lagu celceliyo ku celceliyo ya marka qofkii inay asagii privilege u qaato shaqadii noocaas ahayd waa corruption marka in arinta ka dadaashaan baan ayadana idinku dhiirigelinayaa inaad ku talagashaan waxa inay service yihiin oo service-ka hagaajisaan inaad waxa kale yiraahdo ku dadaashaan sidii leveladii kale ee ka sareeyay intaan hoose knowledge-ka ayagana maaragtay insha Allah ku soo dartaan marka intaas waxaan kaloo rabaa inaan idin xusuusiyo cidii u baahan ama registration-ka ama waxyaabaha in laga gacan siiyo oo ka gacan siinayna ilaa idinkii marka maamulka noo soo mari doontaan waa mahadsantihiin